kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba adduunka ka joogtaan waqti wacan ayaan idin rajeynayaa. Waxaan filayaa xilligan aad muuqaalka daawanayso inaad caafimaad qabto. Sidoo kale alxamdulillaah anigana waan caafimaad qabaa. Halkaad iga daawanayso waa barteeda YouTube-ka ee Haruun Qasaaro. Meel walba joogtaan waxaan idin leeyahay waqtiga idin wacnaado. Muuqaalkan waxaan ugu talagalay degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir oo maanta markaa ku guuleysatay tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir 2021. inaan u hambaliyay kaliya ayaan halkan u imid degmada Dharkeenley ee aan dariska nahay. Caadiyan aniga degmadeedu waa wada jir marka darisnimo u taageeray Dharkeenley. Alxamdulillaah waana ay qaaday koobkii inkastoo silaciis xariir badan ay ka martay degmada Warta Nabadda. Dhowr qodob ayaan rabaa inaan ka hadlo degmada Warta Nabadda oo kale bandhigii ay garoonka ku sameysay degmada Dharkeenley qaabkii markaas rigoorayaasha ay u wajaheen iyo sidoo kale sidii garsoorku u xakameeyay kulankaasi oo ahaa mid kama dambaysa natiijada ka soo baxday oo ahayd sidoo kale kulan final ah natiijadii ka soo bixi lahayd. Haddii aan ku horeeyo degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxay tartankan markaasi ku guuleysatay 2021 tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir 2021. waxaan jecelahay inaan dadka ku dhaqan degmada Dharkeenley isla markaana taageeraya degmadooda iyo sidoo kale kuwa degmada Dharkeenley ka soo jeeda ee dunida dacaladeeda ku sugan inaan dhaho hambalyo waad ku guuleysateen hamigiina waad ka dhabeyseen waad hanateen tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir sanadkan 2021 markii idinkugu horeysay ma ahayno 2019 ayaa sidoo kale qaadeen inkastoo 2020 leedin ka dhaxgalay oo maaragtay leedin ka qaaday ama tartankaas leedin ka reebay laakiin dib ma lahan oo waad ku guuleysateen hambaliyaan idin leeyahay. haddii aan markaa kaftan yar ku daro markii rigoorayaasha la soo gaaray degmada Dharkeenley waxaad moodaa xoogaa xamaasadda ma ka tambadisay mooy iyadoo hal tuurasho dhiman tahay ayay markaasi dabaaldegeen dadka laba qaab ayay markaasi u kala sheegeen amaba u kala saareen. mid waxay ahayd dadka qaar oo leh degmada Dharkeenley sharciga rigoorayaasha ma taqaano iyo kuwo kale oo markaasi degmada difaacayo ayaguna lahaa sharciga rigoora tourist way yaqaanaane degmada Dharkeenley xamaasadda iyo focuska inay saaraan gool kulaadyada ayaa markaasi ku sababay inay xitaa iloobaan in tuurasho ku dhiman tahay oo dhankooda markaasi tuurasho u dhiman tahay. si kastaba way qaadeen oo rigoorayaal ayay markaasi ku guuleysteen. kulanka guud ahaan markii laga hadlo kulanku wuxuu ahaa mid adag wuxuu ahaa mid ka turjumaya in laba degmo oo adagi ay markaas isku wajaheen. wuxuu sidoo kale ahaa kulan natiijadii laga filayay in ay noqoto kulan final oo kale ah. runtiina kulamadaas finalka markii la daawanayo waxaan ugu jeclahay in 1-1 2-2 eber iyo eber la galo rigoorayaal lagu kala baxo. waa kulan markaas la soo dhaarsaday laakiin final oo 5 iyo eber la iska kicinayo 6 iyo eber waxaas final ma dhihi karno final waxaas lama dhihi karo. marka inuu final yahay cadeeyeen labada degmo inay si fiican u soo diyaar garoobeen ay cadeeyeen. haddaan intaas uga gudbo kulanka waxaan u gudbayaa degmada koobka laga qaaday kaalinta labaad gashay ee Warta Nabadda. idinkuna waxaan idin leeyahay hambalyo waa dadaasheen deegaano iyo degmooyin badan ayaa markaasi ka soo gudubteen oo ilaa finalka aad soo gaarteen kaalinta labaadna aad ka gasheen tartanka. runtii dadaalkiina ma xumeyn kulanka intuu socdana waan daawanayay runtii ilaa 7 fursadood oo gool loo filan karay ayaad markaasi lumiseen degmada Warta Nabadda haddaad tihiin. Warta Nabadda dadaal badan ayay markaasi sameeyeen laakiin nasiibka ka heliyay runtii oo inay koobkan qaadaan muddo 20 sano markaasi ku dhow 2001 ilaa iyo hadda koobkan degmooyinka gobolka Banaadir ma ay qaadin. Warta Nabadda marka waxaan idin leeyahay dadaalkan ayaa idinku dheeraaday bal dadaalkiina mar kale sii wada oo finalka hadana tiigsada si aad mar kale ugu guuleysataan. dadaalkiina halkiina ka sii laba jibaaraysan idin jabinin yeesan idin niyad jabinin in markaas tartanka leedin ka qaaday oo kaalinta labaad gasheen. kaalinta labaad xitaa dadaan soo gaarin dada gurubyada lagu reebay degmooyina afarta soo gaari waayay kuwa afarta lagu reebay. marka runtii meel fiican aad imaateen hambaliyaan idin leeyahay maadaama ilaa intuu kulanka socday 7 fursad iyo wax ka badan aad markaas lumiseen. waxaan u soo gudbayaa dhanka garsoorka oo runtii iyaguna muujiyay xeel dheeri aqoon garsoor muujiyay siiba garsoorihii dhexda ay ciyaarta seeriga u hayay. garsoorahaasi ciyaarta waa uu xasiliyay
waxaan arkaya qalad markaas casaan lagu bixin kara xitaa waa uu ka baaqsaday oo kaarka digniintuu bixiyey isdejiyu dhahaya mar walba labada degmo xamaasadiina hoos u dhiga isdejiya runtiina si fiican ayuu markaas kulankaas u xakameeyey ilaa kama dambeystii goolkulaadii la isla tegey. waxaan sidoo kale rabaa in aan u hambaliyeeyo jamaahiirtii iyo taageerayaashii markaasi soo xaadiray garoonka oo runtii degmooyinkooda iyo deegaanadooda markaasi u sacabtumayey oo kalsooni dheeraad ay ka muuqatay calamadii degmooyinkooda wejiga kusoo xardhaday qaarkood calamadii huwanaa runtii taageeradiina meel fiican aad ku bixiseen laba degmo oo markaasi finalka markaasi tegey ayaad tihiin. midna waa laga qaaday nasiibka ka heliye waa Warta Nabadda, mid kalena waa ay ku guuleysto waa Dharkiinley. hambalyaan leeyahay labada degmaba maadaama dadaal badan ay muujiyeen. muuqaalkan inaan kusii dheeraado ma rabo, waxaan jecelahay inaan hambalyo iraahdo labada degmaba, degmada Warta Nabadda oo kaalinta labaad gashay oo dadaal badan muujiyey, iyo sidoo kale degmada koobka ku guuleysatay mar kale Warta Nabadda oo runtii baratay qaabka koobkan loogu guuleysto wax badanna markaas naqtiiminaysa. 2020 laga dhexgalay 19 iyaga qaaday, sidoo kalena 2021 iyaga markaasi degmadooda laga dejinaya koobka. dadaal badan aad muujiseen, waa u qalanteen runtii qaabka markaas u ciyaarteen in aad heerkan soo gaartaan. hambalyaan idin leeyahay dhammaan reer Dharkiinley dal iyo dibad meel walba aad joogtaan, hambalyaan idin leeyahay. muuqaalkan inta saarba inaan kusoo gabagabeeyo, fadlan waxaan ka codsanayaa in like aad muuqaalka noo saarto. saaxiibada cusub ee barteeda soo subscribe gareey aad u mahadsan yihiin, kuwii hore noola joogay malaayiin jeer mahadsanidin. bye bye.